السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ما تكلمنا مركز دون دعك ولدي تشوف من غير قبسين وايو مركا رون دورت دقر هذا سهروا شيء جدا واني ورد كشوف السفر بوك شرو واحد كشوف قال لكم يقولون كسملان كان هنقول الساحل راتي ده هالمقالة اللي جسوا قلت الحمد لله ما تشغل وشرو متى أو ده أو حول يري شرتو راتي واحد على سبيلنا كحلو صورن يسكروا شيء ذاك الفاكسان محمد رشيد lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo soo dhaweyntiisa waxay daaran tahay iyo waxyaabo loo badanayo iyadoo la leeyahay garwayo ku soo arrantii sino arnaa iyo dhalinyarada Soomaaliyeed taasiinayo runta jecelaystay inaan siiyo intaas jecelays horta inaan ka hadlo runtii waxaan ka codsan doontaa wadada sanad soo dhaweeyo xitaa meel joogida mutahay aan midada fiicnaan runtii aan wax ku soo duubay aniga channel subscribe ku saabsan إذا رجلي دي لايك بدن تصحطان شغل مفك مقالك وقالوا أين على استرنانتي ساس دي واحد تشيني يكون الله يقرد وصارت مقالك وتكهل دونتان حتى بقى أركن أما حدا سي إنه على مقطع أحمد رشيد هرس إنه شغل رانتي وحكم دي هاي لنيرت كل بعض تسمى مقالة نيروبي فنانينتا يسوق على ضدك عنك رانتي ضدك عنك دلوقتي براه بشدة كتيرة عمو شو يكبرتي ama uu dhibaato kale u geystay kow iyo laba iyo saddex toona ma aha iyadoo intaas jirto haddana runtii dawlad ka hadashay iyo cid ka hadashay gooniya ma jirto marka laga yimaado dad gooniya oo baraha bulshada ku jira oo si il gaaban iyo si il dheer labadaba ula socday runtii inay ka warhayaan xaaladda dhalinyarta mooyaane sida anoo kale iyo dad kale fara badan si kastaba ha ahaato runtii Axmed Shiid Muqdisho yimi sida soo dhigay dahar cali soo kamid saaxiibadiisa ku adeegsan jiray magaalada Muqdisho ayuu soo gaaray de waxa jira dad badan oo ciilay runtii oo dhibaatay xitaa qaar lugaha ka jira oo naafoobi isaga dartii ayaa baraha bulshada la soo giniyay aad iyo aad runtii waan wax madistay sawirro qaar ugu jirin baraha bulshada lagu soo baahiyay si kastaba ha ahaato haddaba daawade de waxa ka mid tahay laga yaabaa dadka ka xun runtii dhibaatada uu geysanayo ama dhibaatada ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ka mid tahay walkaba adoo dareenkaaga weysii anu hadaa iska hadlo dareenkayga cabiro qof bulshada Soomaaliyeed ka mid horta ma jecel isaga in la dhibaateeyo laakiin qofka waxa wanaagsan intuu dadka gaarsiin in la mida in la dareensiyo oo la tuso xanuunka iyo xumaanta iyo xirdu halka uu ka taagan yahay in uu arko ayaan ugu jeclaysan lahaa because of waxa wanaagsan in qof kasta uu ogaado qofka inuu walaalkiiyo Soomaali inuu yahay markaas uu ogaato inuu walaalaha qofka saafka Soomaali ku hadlayo walaalka oo markaas uu kugu sii kordhi oo markaas uu kugu sii kordhi dhacaan وممكن تكون سي كردي ولا تنو Soomaali Soomaa si kastaba ha ahaato Axmed Shiid magaalada Muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyay waxa leeyahay intii joogta ee aan ka ficil qaadanayn dhibaatada iyo xumaanta dhalinyarada Soomaaliyeed u geysanayo runtii maantaba uu ila joogaa sharma bayna wuxuu kamid yahay dadka isaga dartii u dhibaateynay runtii dhalinyarada Soomaaliyeed dhiiguga daadanayay afkoodii ilkahooda ay u jajabayeen maanta haddaba hadii chance lagu hayo oo caasimadda ummadda Soomaaliyeed yimid meel lagu kala xoog weeyay iyo meel lagu kala xaq badan midna ma aha oo meel sharci loo sameeyay hada haduu yahay askari Kenya kamid uu yahay oo insan ka wada warhayno wax la sheegay inuu askari yahay oo hore waxa la noo wadaagay in saacid kamid yahay BBC jawaab kala badan ka maqlay hadaba dhalinyartii lahayd maanta shukbaaba iyo dhalinyar kale oo kamid ah maanta taagna hadii aan chance u helayno runtii Axmed Rashid هذا ما لهم كان يسكوا هالرفرانتي ما عارفين ما أنت بقوليه نشوفه أما يا بريد الله أورني هبل بنحمي أما قفك استعمل بكل تاعي إذا رجع واحد نرجع حنجها على تصاع سما هذا كبرنا كرتيات على تصاع بالليل سمع ذا كلام حد ذا رجعين وإن ديجني سما نبي تكشرو كأحمد الشيد ما أنت وإذا تشوفه أو ميل إذا كيمي رهانتي ده أودي على تصاع والله أنا ويك طاو والله بالله ما نيجي معها لكن واحد شيء ما دام تشوفه ده دبعتين شري ha ogaado dhibaatada marka maanta Kenya ku noqdo saamta dambe dhibaatada way gatalo ma iga ah inaad ku dirayo inuu wuxuu ku soo qoriyay dahar cali jeesa sharma boy ayuu u socdaa Axmed Rashid oo sharciga la tigsan doona sharma boy kadib markuu aad yahay garow waxba Facebook ku qornaa waxay mangaab